kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel joogtaan kusoo dhawaada wararka ugu dambeeya akhbaaraadka caalamka oo xilligan oo kale aan idinku soo gudbin doono barteena YouTube haddii aan la yiraahdo waxaan ku soo qaadan doonaa war degdeg ah oo ku saabsan diyaarad ay leedahay shirkadda Air India oo 242 qof oo rakaab ah iyo shaqaalihii diyaaradda kuna sii jeeday dalka Ingiriiska oo ku burburtay meel u dhow magaalo lagu magacaabo Ahmedabad oo ku taal dalka India. waxyar kadib markii diyaaradani ay ka duushay mas'uuliyiinta maxalliga ah iyo shirkadda diyaaradaha ayaa sheegay in la rumaysan yahay in dhammaan ama badanka dadkii saarnaa diyaaradan ay halkaasi ku dhinteen. diyaaradan oo nooceedu yahay Boeing 7878 waxa ay ka duushay Ahmedabad markii ay ahayd 1:38 waqtiga maxalliga ah ee dalka India iyadoo oo 242 qof oo ay ka mid yihiin 169 muwaadin oo u dhashay wadanka India, 53 u dhashay wadanka Ingiriiska, 1 qof oo u dhashay wadanka Canada iyo 7 qof oo u dhalatay wadanka Boortaqiiska. shirkadda diyaaradaha ayaa sheegtay warkan kuna baahisay baraheeda bulshada iyadoo xaqiijisay inay rumaysan tahay in inta badan dadkii diyaaradda saarnaa ay dhinteen. taliyaha booliiska ee deegaankaasi wuxuu sheegay inay u muuqato inaysan jirin cid ka badbaaday burburka diyaaradda. diyaaradda waxay ku dhacday meel xaafada oo ku dhow garoonka diyaaradaha ee gobolka lagu magacaabo Gujarat, India, waxaana la sheegay in ay markaasi tani tahay dhacdadii ugu horeysay ee diyaarad noocaan ah oo leh dhimasho dad badan la arko. diyaaradan gaar ahaan waxay lahayd in ka badan 41,000 oo saacadood oo duulimaada, taasi oo celcelis ahaan ah adeega noocaana sida uu sheegay shirkadaha falanqeeya duulimaadyada ee wadanka India oo sheegay inay la yaab ku noqotay shilkan argagaxa leh ee intaas oo qof la rumaysan yahay inay ku dhinteen. shirkadda Boeing ee fadhigeedu yahay wadankan Mareykanka waxay sheegtay waan ognahay bay tiri weerarkii hore dhacdadan waxaan ku dadaalaynaa inaan ururino faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida ay wax u dhaceen. shirkaddii samaysay diyaaradan oo iyaduna warbixin soo saartay waaxda duulista hawada ee India waxay sheegeen in diyaaradan ay ku dhacday meel ka baxsan xadka garoonka wax yar kadib markii ay ka duushay halkaasi. muuqaaladan oo laga helay goobta waxay muujinayaan diyaaradda oo qaraxday iyadoo markaasi hoos uga sii dhacaysa geedaha, taas oo daba socdeen holac iyo uuro madow oo hal mar cirka isku sii shareeray. uuro madow oo aad u culus ayaa laga arkayay goobta shilka ayay tiri waaxda duulista hawada ee wadanka India. ciidanka ilaalada ee warshadaha dhexe ee India ayaa soo saaray sawirro muujinaya shaqaalaha gurmadka degdega iyo dad rayida oo ku howlan daminta dabka. mid ka mid ah sawiradaas ayaa muujinaya dabka diyaaradda oo markaasi gudaha ku dhex markaasi holcaya isla markaana dhismayaal goobta u dhow saameyn ku yeeshay. wasiirka gaadiidka hawada ee wadanka India ayaa sheegay in uu amray in hay'adaha duulista iyo gurmadku ay si degdeg ah isugu dabridaan howlaha badbaadada gurmadka. dhinaca kale gudoomiyaha gobolkaasi oo markaasi la hadlay ra'iisul wasaaraha India ayaa waxa uu markaasi sheegay inay ka wada tashadeen sidii gurmadka loo sameyn lahaa. ra'iisul wasaaraha wadankan uu hadlay wuxuuna yiri shilka ka dhacay deegaankaasi wuxuu nagu reebay murugo weyn, waa mid qalbi jab leh, fikiro iyo ducooyinkeenana way la joogaan dadka ay saameeyeen shilka. haddaba shirkadda shilkan diyaaradeed uu ku dhacay Air India ayaa markii hore sheegtay in diyaaraddu ay ku lug lahayd dhacdo iyadoo sheegtay in wali ay ururinayaan faahfaahinta. waxay sidoo kale dhammaan baraha bulshada ka bedeshay sawiradeeda iyo astaanta iyadoo ka dhigtay sawir madow. diyaaradda waxaa lagu sheegay inay ka duushay garoon diyaaradeed oo ku yaala markii hore Gatwick iyadoo markaasna tagtay London sida uu sheegay Flight Radar 24 oo ah website laga eego dhaqdhaqaaqa diyaaradaha. waxaa la qorsheeyay inay duusho 9:50 subaxnimo waqtiga maxalliga kana degto London markay ku aadantahay 2:25 laakiin wax kasta waa isbedeleen. dhinaca kale Ingiriiska ayaa dhacdadan ka hadlay ra'iisul wasaaraha UK ayaana war ka soo saaray iyadoo ay ku tilmaameen wax murugo leh runtii oo aad looga naxo. dhinaca kale hay'adda lagu magacaabo AAAB-da UK ayaa waxay sheegtay inay sameyn doonto baaritaano maadaama muwaadiniin reer UK ah ay saarnaayeen diyaaradda. hay'adda baarista shilka diyaaradaha ee UK weeye waxayna sheegtay in si rasmi ah arrintan ay ugala xiriirtay dowladda India. waxaan u dareynaa bay dhaheen khubaro Hindiya si ay gacan uga geystaan baaritaanka ay hogaaminayaan mas'uuliyiinta India. waxaan dareenka murugada lala qaybsanaynaa dhammaan dadkii shilkan u saameeyay ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay dowladda Ingiriiska. waxaa kaloo soo baxaya hadda war cusub oo sheegaya in hal nin oo kaliya uu ka badbaaday diyaaraddaasi isaga oo la wareystay ninkiina.
waxaanu helaynaa warar sheegaya in muwaadin u dhashay dalka ingiriiska uu ka badbaaday shilkan diyaaradeed. taliyaha booliiska ee deegaankan axmed debed malik ayaa u sheegay wakaalada wararka ee AINA in hal qof uu ka badbaaday shilka kaasi oo ku fadhiya kursiga la yiraahdo 11A ee diyaaradda Boeing 7878 oo wuxuuna sheegay in qofkaasi hadda la wareysanayo. wuxuu u sheegay wakaalada in ninka badbaaday haatan uu ku jiro isbitaal lana daweynayo, laakiin liiska rakaabka ayay horey u shaaciyeen. mas-uuliyiinta ayaa muujinaya in qofka fadhiya kursigan A uu yahay Fishwash Kumer Ramesh oo ah muwaadin u dhashay dalka Ingiriiska. warbaahinta India waxay sheegeen inay la hadleen ninkan isagoo ku jira isbitaalka. waxaa la wadaagay nuqul ka mid ah tigidhkiisa oo muujinaya magaciisa iyo lambarka kursigiisa. waxa uu yiri 30 ilbiriqsi kadib markay diyaaradda kacday way dhacday qarax weyn ayaana dhacay. kadib diyaaradii ayaa hal mar dhulka ku soo dhacday, wax walbana si degdeg ah ayay isu bedeleen. waxaan weli raadinaynaa faahfaahin dheeraad ah ayaa sidaasi ku dareen saraakiisha booliiska ee deegaanka oo markii ninkan la wareysanayay iyaguna goobjoog ka ahaa. wixii warara ee arrintan kusoo kordhana waxaan idinku soo gudbin doonaa wararkaana iyo barnaamijyadeena dambe haddii uu alla yiraahdo. sidoo kalena wararka kale waxaa ugu waaweyn aan idinku soo gudbin doono barnaamijkeena caawa iyo dunida. shaqaalaha muhiimka ah ee safaaradda Mareykanka iyo qoysaskooda oo ku sugan Baghdad ayaa lagu wargeliyay in laga rarayo dalka Ciraaq sabab la xiriira khataraha amni ee soo taraya sida ay sheegeen ila dawladda Mareykanka ka tirsan. mas'uuliyiintu ma sheegin si sax ah waxa sababay talaabadan, balse arbacadii warbaahinta CBS ee wadankan Mareykanka ayaa sheegay in saraakiil Mareykana lagu wargeliyay in Israa'iil ay diyaar u tahay inay weerar ku qaado Iran iyada oo la soo xiganayo mas'uuliyiin arrintaasi xoogaal u ah. saraakiishu waxay xuseen in tani ay qayb ka tahay sababta Mareykanku uu uga digay qaar ka mid ah muwaadiniintiisu inay ka baxaan gobolka, iyada oo markaasi intaasi ku daray in Mareykanku uu filayo in Iran ay uga argudato goobo gaar ah oo Mareykanku ku leeyahay gudaha bariga dhexe ama wadanka Ciraaq gudihiisa. arrintan waxay imanaysaa xilli wada hadaladii Mareykanka iyo Iran ee ku saabsanaa barnaamijka nuclear-ku oo u muuqdo kuwo guul dareystay. wakiilka Mareykanka u qaabilsan bariga dhexe oo wali qorsheenaya inuu la kulmo mas'uuliyiinta Iiraaniyiinta Axadda si uu markaasi u gudagalo wareegga lixaad ee wada hadalada ayaa xaqiijiyay in hawshaasi ay walaac badan ka qabaan. mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay waxaan si joogto ah u qiimeynaynaa tirada shaqaalaha ku habboon safaarad kasta inay sii joogaan, iyadoo aan ku salaynayna bay dhaheen falanqeynadii ugu dambeeyay. waxaan go'aansanay inaan yareyno raadadka howlgalkeena Ciraaq. madaxweynaha Trump ayaa arbacadii wuxuu ka hadlayay arrintan, wuxuuna sheegay in muwaadiniinta Mareykanka looga baqayo inay ka baxaan gobolka maadaama uu noqon karo meel khatar ah. waxaan eegaynaa buu yiri wixii bal halkaasi ka dhaca. Trump wuxuu sidoo kale mar kale cadeeyay in Mareykanku uusan doonaynin in Iran uu ka samaysto hub nuclear in Iran uu samaysto buu yiri hub nuclear mana ogolaan karno ayuu yiri Donald Trump. dhinaca kale isagoo ka hadlaya barnaamij podcast oo ay leedahay jariirada New York Times wuxuu sheegay in arrintaas uu si dhow ula socdo shaqaalaha muhiimka aan ahayn ee Mareykanka ee ku sugan bariga dhexana ay qasab tahay in sida ugu dhaqsaha badan ee halkaasi looga saaro. arrintaas ayaa runtii iyadana ugu weyneed oo dhinaca Mareykanka uu walaac runtii xoog la ka muujinayay. dhinaca kalena sargaal hore uga tirsanaan jiray hay'adda dhexe ee sirdoonka Mareykanka ee CIA ayaa isna dusiyay xog xasaasi ah oo ku saabsan qorshe Israa'iil ay ku weerari rabto iyadoo lagu xukumay 30 sano oo xariga. ninkan oo 34 jir ayaa qirtay inuu bishii Janaayo si kas ah u kaydsaday isla markaana u faafiyay xog sir ah oo taabanaysa amniga qaranka sida uu qabo xeerka basaasnimada. mas'uuliyiintu waxay sheegeen in ninkan lagu magacaabo Raxmaan oo adeegsanaya ruqsad heerkeedu sareeyo oo daabacay sawirro dabeedna uu diray qoraallo sireed xasaasi ah kuwaas oo markii dambe la wareejiyay baraha bulshada. Israa'iil ayaa bishii Oktoobar fulisay weerar lagu beegsaday goobo military oo ku yaala dalka India taas oo jawaab u ahayd gantaalada Tehran ay ku garaacaysay Israa'iil toddobaad ka hor. ninkan ayaa ugu dambeyn ahaa sarkaal CIA waxaana uu fashiliyay qorshe weerar oo Israa'iil ay damacsaneed. haddana isagii waxaa lagu xukumay xabsi sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay ee arrintaasi laga helayo. gudaanta wadaanintaasaan kusoo gogweynayna barnaamijkeenii habeenimo ee aanu kusoo qaadanaynay wararka ugu dambeeyay ee dhacdadaasi wixii kasoo kordhay shilka diyaaradeed ee dalka Indiana. waxaan idinku soo gudbin doonaa haddii uu alla yiraahdo barnaamijyadeena dambe inta aanu mar kale kulmi doono barnaamij midkan lamid ah. waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. haddii aad nagu cusub tahay si aad mar walba u socoto barnaamijkeena caawa ee dunida kusoo biir barteena YouTube iyo Facebook si aan mar walba u noqotid qofka ugu horeeya ee hela wararkeena iyo dhacdooyinka aan halkan kusoo gudbinayno. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا هاي يوسف